الله الله ما لنا مولى سوى رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما أدري أيها الأخوة سبحانه وتعالى أنا قد قيد الإسلام كافر صدا كلمة قارئة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كذب عن ما أدري الله يدورين النقضة قفضة المسلمين تها كعوية كلام كإلهي سمع النبي صلى الله عليه وسلم استاود رأيان وحنو مهان لغايا لمان بودهان دادكار سوماليلان gaarahaan xukuumadda Soomaaliland waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maayarka halka fadhiya iyo gudoomiyaha degmada iyo maasha Allah nabadooka guud suldaanka guud hawd dhakhtarka iyo dhammaan culimada halka fadhisa barnaamijkan waxa la umaarta kulleed insha Allah tala soo diyaariyay barasabka si aan u ogaano wax qabadkeena looga warbixiyo dadka shakiga ku jiraan looga saaro. Sal garanaysaan waxaan deganahay magaalada Boosaaso. Amalkan hayana waa midka ka aragtay YouTube-ka ma isxirole ma qof sheedan la shaqeysta waxaan hay dadka muslimiinta nin jecel inuu anfaco sida nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu tilmaamay من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل به. النبي صلى الله عليه وسلم سكراه هدي وأود متكين وأنفع ولن كأنفع وحنا أخرينا وواحد مقشن ما نقرصونا ونقول ما هي فرعية ما فعالية أما ساحر ربهم تلوحوا الشيء سمع عدوا وين بانكو حري وحكى الصباحين والكلام رب العالمين قف الكرمية قف كان فاهمين إنه والله شيء وحنا أخذنا القرآن halkana waxaan u imid inay tahay dalkeygii ama ehelkeygii. Dadka qaar waxa laga yaabaa inay maartay isleeyihiin ninkani wuu fog yahay, laakiin dadka ha loo sheegay inaan ahay 70% Somalilander adigu sidaa doonta u soo baar. Waxaan nugay naas baan nugay awlaadeedo dhanna waxa weeye waa Somalilander weeyaan. marka meesha iskama imaanana waxa ay keenay dhiig iyo hilib waxaan doonayaa inuu heliyo dadkayga la sixray ee sagalada bistaagay dadku markay yimaadaan Boosaaso waxaan ku sameynay diiwaan gelin baan ku sameynay 6,000 oo qofood ayaan waxaan qornay hal sano 12 bilood 6,000 oo qofood oo kamid Boorame Burco iyo Hargeysa dadka yaa sixray su'aashu waa inta weeyaan way iska cadahay dad baa sinjiga farcawle in ummadda muslimiinta kula mashquulaan sixir wala la garanaya meelaha la sheegay loo furay sixirka dadka lagu sixiro. waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland inay u kala gashato dadka suxarada ah iyo dadka hoosta ku wata ee dadkoodii baabi'iyay. dumarka maanta ugu dambeysay aan quraanka saarnay ilaa 1,200 bay gaarayeen 850 qofood kama yarayn dumarka si aan ka qaylinayay. waxa la sixray waa hooyada, waxa la sixray waa walaasha, waxa la sixray waa gabadhaadii. taas waxaan ka codsanayaa dawladda culimada Soomaaliland sharafta leh ee qiimaha badan ee ahludiinka iyo inta quraanka taqaanaba waxaan idinka shafayaa dadkii waa la sixray cadowgaana haysta jin ayaa ka qaalib noqday afraad ka qaylinaya ishu way u dheertahay waxay doonayaan quraanka in lagu kaalmeeyo qiyaamana waxaad baratay waa lagu weydiinayaa. waxaan ka codsanayaa inaad samaystaan xarumo waaweyn oo dadka lagu cilaajiyo ilaahayna loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala. adiga sheekh iscilaaji ilmahaaga cilaaji dhammaan inta ehelkaagana u sameey waqti aad cilaajiso maxaa yeelay quraanku waa dawo ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala. waxaan leeyahay cadowga ama xasadka aan ogolayn hawshan la qabto hawshan waa la wadayaa mana joogsan doonto ilaa inta aan noolahay. haddaan dhintana kuwa kale oo u tababaran ama aan dhalnay ama nala dhashay ama ehelna unbaa soo bixi doona. waxaan si gaara ugu dirayaa niyahow hadalka ay sheegayso hubso. rag baa istaagay ninkaas jinnigu la shaqaysta waa sixirole si ay dadku u iswaasiyaan
arrinkaas ilaahay ka cafiyo anu waxba kuma haysto laakiin hubi ilaahay ayad quraan ku sheegay hadduu idin yimaado mid beenlow ah addee hadalkuu leeyahay waxaad leedahay waa la yidhi waa lagu yidhi shaydaan baa ku yidhi annagu cabsis baad naga tahay laakiin walaal intaad anigu mashquuli lahayd ummadda maanta kaalmay doonaysaa diinka waa taqaanaa oo kaalmeen marka hadalkan waan dheereeyey waxaan diyaar u ahay inaan shaqadaa wado weliba noloshayda aan ka siiyo wakhtiga ugu dheer dalkan meeshaan hadda imidna hargeyso dadkii baanu maamuli weynay waa la kala celin waayey rag iyo dumarkii baa isdhex galay saasaan nagu kaliftay inaan soo dhowaano halkan aan joogana waa meesha waxaa weeyaan maaragtay dee aan isleeyahay haba lagugu duugo marka ninka luqluuqa maraya xuman raadiska ha ogaado inaan ahay nin somalilandana ha loo sheego waa farriin gaara hadduu shir noqon lahaa iyo hadduu shaydaan noqon lahaaba saa ha laga gaarsiiyo dalka iskama iman waan u dhashay marka intaasaan ku soo koobayaa waxaan qaldana naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen waxaan saxayna ilahay baa nagu dhowaaday wasala allahuma calaa nabiyina muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam